سير راعنا جاء هبلها سفيا عن إن أي ركو قنعلام سلكنا هاي كريدنا مركان اللي سفيا عوانا قنعسان قالوا حاجرة صار استعمال الدوين كتعية بحالك فكا أيا جرا هبلها اللفتر كودا هاي كتكتونادان بحالك ركا دوين كتعية أو براري أيا جرا markay kabadhu ku hadal badato ay u isticmaalaan inta badan qaarkoodna markay kabadhu ku cusub tahay ay u isticmaalaan si ay ugu qaadato inuu bahalkiisa taabiyo hooyadii ku dhaleen asoo iskaga dhigaya marka waxaan dhihi lahaa dawooyinkaasna inaad gabdhaha Soomaaliyeed aad u isticmaashaan ma wanaagsano hablahana waan uga tigayaa ha iska ogaadeen bahalkiisa weynaaday ama bararay haday arkaan ha ka fogaadaan wuxuu soo isticmaalay waxyaabo كتعيو وايا كاسو كلته مركو كليجي إنه واحد كتير أود ملها قفك اسكو كرسون ما استعماله لكن قارك عن اسكو كرسونين أي استعماله خيارات أي جاها مركو كفو هذا بان الله هاي كبردي عرفتا من أستعمل النوع عصها لا هكا عرفته لما كانوا خلاه هاي كبلها هاوس استعمالين وخيابها بس كبرارية أما دوين كان استعماله سان أو استعمالين بان الله هاي marka hablo idinkuna waa idin sheegay qof kasta wuxuu ku khaldan yahay inaa u sheegtaa wanaagsan marka habliina waan u tigay wiilashana waan u tigay marka qof kasta oo bilaadan ahna wax uu ku fun yahay wax uu ku wanaagsan yahay taas qof kasta ha ogaado marka ani wallahi waan ka soo horjeedaa hadda ka hor waxa dhacday magaalada Addis-Ababa laho bahada ka hor waxa ka dhacday ninba wuxuu ka tagay wadankan Sweden buu ka tagay magaalada Addis-Ababa la dhaho ayuu tagay Addis-Ababa markuu tagay ayuu kabadh buu ayaa reerkooda u guuriyeen marka tay wiilka aabihii kabadh aabeeyta iskarinay wiilku tay dadkan Yurub intuu ku baaba'ay mukhaataraadka aad u isticmaalo ahaa tay marka taasday gabadh saameeyo tay toltolan bad u tagaysa awoodna ma haysid aad kabadh ku fikri jibiso marka tay waa inaad dawooyin aad isticmaashaa oo bahalka balaariya gabadhii uu isticmaalo marka bahalka rakaatay dawadii balaadinaysa uu isticmaalay kadib markuu uu isticmaalay ayuu gabadhii u tagay tay gabadh yar oo tay weligeed aan waxaas aragtay ahayd tay gabadhii waxay ku leedahay markii laba habeen la seexatay buuti wax gaara aad moodo inantiisa u dhex kaliimoogtay inantii way ka soo carartay reerkoodii dib ugu soo noqotay waa maxay baa lagu yiraahdaa waa la wareystay anuu ninkan mar soo anuu ninkan inuu bahal ikaliye inuu jilib ikaliye bay tiraahday ma kala garanayo laakiin waxay u weydiisaan bay tiraahday wax weyn buu dhax dhigay ku tiraahday reerkii bas kadib adoo wala si tab kala arinta ayada heed waxa la soo ogaaday inuu isticmaalay ninkan baashan kuska rakab bararsa inuu soo isticmaalay baa la ogaaday ninkii halkii baa xaalin sameyn laga qaaday sida dhaqanka Soomaalida ahba oo gabadha markeedii baa laga qaaday ahayd halkii baan laga furay halkii baan intii sheekadaas ku dhamaatay marka oo waxyaabo dhabaha oo dhaca sidaas ayada qofka ku dhacday anigu toos baan u garanaya laakiin ana barnaamijka waxa ka mamnuuca inaan ku raado qofka magaaladaas ama magaca kala lahaa barnaamijkayga waa ka mamnuuc marka oo waxyaabo dhabaha oo dhacay waxaan aan idin sheegayo qisadaasna waan u taagnaayadna marka habluhuna ha digtoonaadaan masiibooyinkaas oo kala jira wiilashuna ha digtoonaadaan masiibooyinkaas oo kala jirta marka meesha runtii marka u fiirsato waa la isku dhiban yahay haddana waa la isku baahan yahay waa baahina meesha way jirtaa oo dadkii ma kala maaranayaan oo waa la isku baahan yahay waxa kale jirta maxaan ku dhahay wax la yiraahdo kullu dadka aqliga leh way og yihiin kala shakiga faraha badan ugu jira marka waxaan leeyahay dad badan waxa jira hadda inta meediyaasha isticmaasho wax kasta way la socdaan oo dunida ku soo kordha ama ka dhaca laakiin dad waxa jira aan waxaas u haynin oo ka dhagala oo duni kala tooriyo mood kale iskaga jira ayaa jira marka dadka laftirkoodana kulli sheekay dadkaas kale ku gaari doontaa marka hablahana hadii ay arkaan nin astaanta aan soo sheegay leh oo wuxuu sudee wax aanina caadihin uu yahay aad u baaweyn haduu yahay ka fogaada ninkaas
bahalkiisa caadiga ma ahan xubin soo cunay kaas kale wuxuu ugu talagalay inuu salka ka rido maxaan kaloo aan kula tartaarmay asxaabtayda qiimiga qadarida noo barnaamijkeena waa gabagabo waan jeclaa inaan idin sii wado laakiin koronto kuma shaqeynayo biyaha cad ku shaqeynaya